kusoo dhawaada barnaamijka caawa iyo caalamka qodobada wararkeena ugu waaweynna waxa ay kala yihiin baarlamaanka Britain ayaa caawa qaban doona codayn aanan caadi ahayn si loo idleeyo jahawareerka siyaasadeed ee ka bixista midowga Yurub ku gadaaman warbixin dheeraad ayaanu idinkaga haynaa wararka kale caawana waxa kamid ah xeriyahana waa ay ka baxayaan dalalkoodiina waa loo diiday waxaanu booqannay xero ku taalla waqooyiga Suuriya oo lagu hayo rag iyo dumar ay iska tirsanaa waxaanu sidoo kale eegi doonaa buug kamid ah buugaagtii hore oo sheekadiisa hab casri ah loo soo bandhigay kala soco BBC News Somali Television raadiyaha online iyo baraha bulshada halkan waa BBC London barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka habeen wanaagsan daawadayaal aniga maxamed cabdi xaraare oo idin la socodsiinaya barnaamijka caawa aan ku bilaabe baarlamaanka dalkan UK ayaa qabanaya codayn kuwii hore ka duwan caawa si xal looga gaaro ismariwaaga iyo jahawareerka ka bixista midowga Yurub ku gudban xildhibaanada ayaa looga fadhiyaa in ay doortaan habka ugu wanaagsan ee uu noqon doono xiriirka mustaqbalka u dhaxayn doona Britain iyo midowga Yurub sida caadiga ah dawladda ayaa go'aamada dalka gaarta ka hor inta aanan baarlamaanka la keenin hayeeshee kadib 2 jeer markay ra'iisul wasaare Theresa May lagu celiyay heshiiskii ay ka keentay midowga Yurub xildhibaanada ayaa u codeeyay in baarlamaanku uu la wareego guud ahaan go'aamada dalka waxaanay go'aansadeen in la qaado codayn kale oo aanan horay loo filayn waxa walaac hadaba laga qabaa in natiijadu ay ku soo idlaatay in Britain ay ka baxdo midowga Yurub waliba si aanan heshiis ahayn ama aanan heshiis lagu ahayn ama aanan heshiis horay looga sii gaarin dawladda ra'iisul wasaare Mayna arintaasi mas'uuliyadeeda ma qaadi doonto Aisha Afrax ayaa inoo faahfaahinaysa Brexit waa ka bixitaanka Yurub guul ayaana ka keeni doonaa xasuusa hadalkan run ahaantii may noqon arin sahlan Brexit wali waa laga wada hadlayaa baarlamaanka Britain ma jecel qorshaha ay dawladdu wado maanta waxay go'aan ku gaareen in baarlamaanku uu hoggaanka uu qabto ka bixitaanka Yurub fiidkan soo haya xildhibaanada waxaa la siin doonaa warqad ay ku qoran yihiin xalal kala duwan oo ku aadan ka bixista si ay ugu codeeyaan xalka ay doonayaan afayeenka aqalka ayaa ku dhawaaqi doona natiijada fursadaha ayaa waxaa ka mid ah in la mideeyo cashuuraha Yurub heshiis ganacsi oo xor ah in heshiis la'aan ay ku baxdo Britain ama afti kale la qaado iyo in Britain gabi ahaanba aysan ka bixin midowga Yurub oo ay iska joogto laakiin se laga yaabay in dawladdu ay ku gacan saarto codadka xildhibaanada iyadoo ra'iisul wasaaruhu ay isku dayayso in heshiiskeeda la aqbalo qaar ka mid ah taageerayaasha ka bixista midowga Yurub ayaa sheegay in heshiiska dawladda ay taageeri doonaan maxaa yeelay waxay ka walwal qabaan in Britain ay heshiis la'aan ku dambayso Boris Johnson ayaa sheegay waxa uu isleeyahay inuu xal ku yahay waxaan doonayaa inaan maqlo waa haddii la doonayo in ka bixitaan la fahmo waa in isbeddel weyn uu ka dhaca sida ay UK u gorgortamayso su-aashiisu waxay tahay in ra'iisul wasaare May ay xilka ka degto xal ma noqonaysaa caawa ayay baarlamaanka khudbad ka jeedin doontaa codaynta ka hor waxaana jiro xubno badan oo ay u baahan tahay inay heshiiskeeda ka dhaadhiciso iyadoo dawladdu aysan hubin in ay guul ku soo afjarmi doonto UK ayay ahayd inay midowga Yurub ka baxdo maalmaha soo socdo hase yeeshee ilaa iyo hadda dadku ma fahamsana waxa ay ka bixistu ka dhigan tahay وهاجاك هدبا waxaa studio hayla jooga Faarax Cigaal oo ka faallooda arrimaha xiriirka caalamiga Faarax ku soo dhaw BBC Somali TV wali waxa taagan jahawareerka ku gadaaman arrimaha ka bixista midowga Yurub ee Britain caawa xildhibaanadu way fadhiyaan baa leeyahay fadhiyaan caadi ahayn codayn bay sameeyaan waa maxay waxa ay ka doodayaan waxay ka doodayaan sidaad la socotidba cod baa ka dhacay aqalka baarlamaanka maalintii Isniintii waxaana la isla gartay in baarlamaanku ay arintan iyaga laftigoodu ay maadaama ay saameyn badan leedahay 2 jeerna heshiiskii ra'iisul wasaare May goluhu u codayn waayay inay iyagu keenaan aragti ka duwan si loo hubiyo inay jirto aragti guud oo gurigu isla qaadan karayo dabeetana arinta lagu ambaqaado sidii habkii looga bilaa Yurub ama lagu kordhiyo heshiiska Theresa May taariikhda dalkan Ingiriiska markii ugu horeysay uu baarlamaanku howlaha dawladda la wareego maya
arrin sidan oo kale ama la odhan karo way u dhoweyd waxay dhacday wakhtigii dagaalkii Canal Suez oo aan filaya inay ahayd 1950kii ama dabayaaqadii kontomiyadii ay ahayd ayaa ugu dambeysay runtii arrintani wax la yiraahdo indicative vote oo afka Ingiriiska lagu yiraahdo oo macnaheedu uu yahay waa soo jeedin sidoo kale ma aha waxa loo yaqaan binary sharci ma noqonayso tusaale arrimaha ay ka doodayaan caawa oo ay loo badinayo inay ilaa ka kooban yihiin 16 qodob ama 16 motion ma noqon karaan binary sharci ma noqon karaan laakiinse waa aragti la doonayo in la ururiyo cod iyo aragtidii aqalka la ururiyo si heshiiskan meel loo badan yahay arrimihiisii loo falanqeeyo dadtaan isla qaado waa gartay waxyaabaha ka aadka looga dooday waa in waxaan la yiraahdo article 50 ama qodobkan content ee dawladaha ka tirsan midowga Yurub siinaya awood ay uga bixi karaan midowga article 50 waa la dalacayaa ama waa la laalayaa baa leeyahay maxaa loo jeedaa waxa weey horta sidiisaba qodobka la yiraahdo article 50 waxa weeyaan 28ka dal ee midowga Yurub ee Ingiriisku ku jiro dal walba wuxuu xuquuq siinayaa waa qodobka sameynaya technicality-ga hadii dal uu doonayo inuu ka baxo midowga ka baxo marka dalka waxa la gudboon markay yiraahdaan diyaar baan u nahay wada hadalkii aan ku kala gureynay dalka iyaga iyo midowga Yurub ayay qodobka sii deynayaan oo waa halka kelmaddu ay ka timaado triggering article 50 marka la sii daayo dabeetana wada hadalku waxa technically dictate gareynaya oo maamulkiisa la wareegaya midowga Yurub وانا sababta aad aragtay hadii jeer marka labadii jeer ee heshiiska baarlamaanka la keenay ra'iisul wasaare May ay labada jeerba ku guul daraysatay in aqbaliyad ay lagu ansixiyo ay hadii jeer dib ugu noqoto Brussels dib ugu noqoto iyadoo marka le iga daayay ama ka bedela ama ka wax ka bedela talaysku hayaana ay tahay arinta hadii la laalo maxaa dhacay hadii revocation waxaan leeyahay lagu sameeyo la laalo ay baarlamaanka caaw fadhiyo laalaanba maxaa dhacay halka lagu noqonaya article 50 waxa weeyaan markii la sii daayay waxa la isla gartay muddada uu socon karaya waa muddo cadidan waa 2 sano labadaas sanadood gudahood dawladda Ingiriisku waxay xaq u leeyihiin inay yiraahdaan article 50 hakiya waa gartay dib baan isugu noqonaynaa ama arrimo badan baan ka baaran degaynaa dabeetana wada hadalkii halkaas ugu joogsamaya marka waa joog meeshaad joogtay wixii dhiijo halkii baa lagu noqonaya marka wada hadalku dib u bilaamayo hadana waa la tirgargaraynaya marka leeyahay completely revoke ama joojiya macnaheedu waxa weeyaan waqti baad loo baahan yahay in baarlamaanka Ingiriiska iyo qarankan sidiisaba wadankani bal aragti guud oo hagaagsan in laga yeesho ka bixitaankii iyo ka simid noqoshihii midowga Yurub waa gartay waxa daawadayaasheena Soomaalida ah qaar badan oo waxa jira Yurub ka soo guuro halkan degan saameyn sidee ah bay ku yeelan doontaa arinta ka bixista ama kala gurista midowga ee Britain waxa jira dad ku dhow tiradu ay dhowr milyan tahay oo Ingiriis iyagu national ah oo dalashada Ingiriiska haysto Yurub degan oo Spain degan oo dalal kala degan waqtigii wada hadalku uu socday ballan qaadyo siyaasadeed baa dhacay oo ah oo dawladda Ingiriiska iyo midowga afgarad uu ka ahaa in dadka Yurubiyanka ah ee degan halkan degani ay joogayaan oo aan wax isbedel ah aan arrintan aan ku yeelanaynin laakiinse wax binding oo sharci ah wali ma aha sidaad la socotid haddana qofku markuu halkan degan yahay oo ku haysto residency 5 sanadooda inuu residency haysto isaga laftigiisa xuquuq buu helayaa inuu dalbado residency qofka dushiisa soo degan ama uu shaqeeyo ama uu doono wax qabtay ama uu ganacsi leeyahay uu dalban karaa inuu helo deganaansho uu ka helo dalkan marka saameyntu way kooban tahay marka saameynteedu inta aynu ognahay hadda way kooban tahay haddii xaaladdu marka ay isku bedesho inay noqoto Ingiriisku uu ka baxo midowga Yurub iyadoo haba yaraatay wax heshiis aan la gelin taasi arrimo kale yeelan kartaa jidad kalena wuu bixi kartaa laakiin wali maynaan gaadhin halka filina mayno inay arintu halka ay mari doonto waa gartay caawa 16 motion baa laga wada hadlaya waxyaabo ay dadka caadiga ah fahmi karaan maxaa filaysaa inay caawa soo bixi doonaan caawa waxyaabaha ugu badan horta waa historic arintani waa taariikh inay xildhibaanada golaha la wareegaan effectively labadii galabnimo ayay xildhibaanada la wareegeen aqalkii la wareegeen waxay soconaysaa ilaa caawa 7 doodahan ay soconayaan oo 7 loo markaa loo dareeriyo sidii cod bixin loogu sameyn lahaa ilaa 16 qodob oo qodobada ugu waaweyn ay yihiin in laga baxo iyadoo heshiis la'aan laga baxo heshiisyo soo baxay ilaa 6 way soo bixi doonaan ta kalena waxay imanaysaa in ilaa isniinta laftigeeda ay dib haddana u qaataan hogaankii guriga iyo wixii businesskii guriga ay haddana xildhibaanadu mar labaad la wareegaan laakiinse waxaan arrintan arrin sharciya maaha waa gartay aad iyo aad ayaad u faahsan tahay Faarax Cigaal uu ahaa ka faallooda arrimaha xiriirka caalamiga bal markan haddii aan eegno qodobo kale oo ku jira wararka caawa
shaqaalaha gargaarka ayaa sheegaya in duqeymo cirka ah ay ka dhacday meel u dhow cusbitaal ku yaala waqooyiga galbeed ee Yemen ay ku dhinteen ugu yaraan 7 qof iyadoo ay dad kalena ku dhaawacmeen. Weerarka ayaa la aaminsan yahay in ay fuliyeen isbahaysiga Sacuudiga uu hogaamiyay dagaal kula jira kooxaha Xuutiyiinta. Cusbitaalku wuxuu furnaa saacad iyo bar kaliya iyadoo ay dad isugu jira bukaan iyo shaqaale halkaas ku sugnaayeen markuu gantaal ku dhacay. Israa'iil ayaa sheegtay inay qaado weerar kale oo ay la beegsatay bartilmaameedyada Xamaas ee Gaza. Ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in ay weerar ku qaadeen xarun ee Xamaas leedahay iyaga oo ka jawaabay gantaal lagu ganay Israa'iil. Shaqaqadan ayaa imaanaysa kadib markuu ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu sheegay inuu diyaar u yahay inuu qaado tallaabo militari oo dheeri ah ka hor doorashooyinka 9 Abriil. degmo ka tirsan gobolka New York ayaa looga dhawaaqay xaalad degdeg ah oo wax looga qabanayo jadeeca ba'an oo halkaas ka dilaacday 30 maalmood ee soo socda qof kasta oo 18 sano jir ah oo aan horey loo talaalin ayaa laga mamnuucay inuu tago goobaha dadweynaha ee deegaanka Rockland. Dugsiyada waxbarashada ayaa la xiray kadib markii ay in ka badan 150 case oo cudurka jadeecada halkaas laga helay. hogaamiyaha Austria Sebastian Kurz ayaa xaqiijiyay in uu jiro xiriir shaqaale oo u dhaxeeya ninkii mas'uulka ka ahaa weerarada ka dhacay Christchurch ee New Zealand iyo kooxda midigta fog ee Austria. Ciidamada dambaarista dalka Austria ayaa weeraray guriga Martin Sellner oo ah hogaamiye kamid ah kuwa midigta fog. xusno wararkii ugu dambeeyay BBC Somali waxaad ka heli kartaan bbc.com/somali. wali waxaa inoo socdo aad qaybaha dambe ku daawan doontaan cabsida laga qabo masiibooyinka goobaha macdanta ee ka dhacda dalka Brazil. qadar yarnas shaah dabadeed. habeen wanaagsan mar labaad wali waxaad daawanaysaan caawiya caalamka waniga Maxamed Cabdi Xaraare balaan idin xasuusiyo qodobka caawa warkeena ugu weyn. baarlamaanka Britain ayaa maanta macaawa qaban doona codeyn aanan caadi ahayn oo isdaba joog ah si loo idleeyo jahawareerka siyaasadeed ee ka bixista midowga Yurub ku gadaaman. toddobaadkii aynu soo dhaafnay ciidamada Kurdiyiinta ayaa gacanta ku dhigay koobtii ugu dambeysay ee haysteen kooxda la baxday dowladda Islaamka. waxaa la soo afjaray khilaafadii ay kooxdaasi ku dhawaaqday 2014. haddaba iyada oo loo dabaaldegayo guushan, Kurdiyiintu waxa ay sheegeen in ay la daaladhacayaan waxa ay kumanaanka ragga iyo dumarka isugu jira ee ay dagaalada ku soo qabteen ay ka yeeli doonaan. waxay codsanayaan in maxkamad caalami ah dadkaasi la saaro. BBC-da ayaa booqatay degmada Roj oo ku taala waqooyiga Suuriya oo ay maxaabiis badani ku sugan yihiin. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa inoo faahfaahinaya. maxaa lagu samaynayaa ragga iyo dumarka maxaabiista ah ee laga qabtay kooxda isku magacowday dowladda Islaamka? waa carqaladda ugu weyn ee taalla deegaankan ugu dambeeyay laga qabsaday kooxdaasi. boqolaal dumar ah oo ka kala yimi ilaa 40 dal ayaa ku jira xeradan ku taalla waqooyiga Suuriya. waxaa ka mid ah Ilham oo ka soo jeeda Holland, qiratayna inay kooxdan ku soo biirtay ilaa iminka ma garanayso meel lagu maxkamadayn doono. dowladda ayay ka codsadeen inay celiso, laakiin wali waan sugaynaa. haddii aad ku noqoto Holland maxaad isleedahay way dhacayaan ayaan weydiiyey. xabsi ayaan geli doonaa, malaha carruurtayda iyo qoyskayga. taasna waad yeeli doontaa? haa, waayo waan ogahay inaan khalad galay. waad fahamsan tahay soo maaha inay jiraan dad caalamka kaa daawanaya oo odhan doona halkeeda ha joogto. haa, laakiin maaha waxay dadku aniga iga qabaan. iyada oo dalal badan ay diidayaan inay dib u qaataan dagaalyahanada IS ee ka soo jeeda hawshaas waxaa looga tegay maamulka Kurdistaan ee aan awoodda badan lahayn. halkani maaha xabsi, sida ku muuqata waa xero ku taala meel dagaal ka socdo. inta ay arrintani sii jiitantaba waxaa sii kordhaya khatarta inay wax dhacaan. xasilooni darri ayaa mar kale dhici karta haddii aan qorshe la dejin. waa bambo sugaysa inay qaraxdo. dadka deegaanka Kurdiyiinta Suuriya dhibaato badan ayay kala kulmeen maamulka IS. dad badan ayaana ku dhintay intii ay la dagaalamayeen. dadka halkan joogana aad ayay uga calaysan yihiin markay dowladaha sida Britain kala noqdeen jinsiyadii dadkii ku soo biiray ururkan. madaxa arrimaha dibadda ee Kurdiyiinta Cabdulkariim Cumar ayaa sheegay inay arrintaasi dhibaato weyn abuurtay. nasiib darro ayuu yidhi beesha caalamku meel ayay nagaga dhacday.
awoodu ma hayna dadkan kaligayo haddii aanu caalamkuna taageerin dhibaato ayaa iman doonta mar kalena kooxdan la baxday dowladda islaamka khatar ayay dhammaanteen ku noqon doontaa kadib duulaankii ugu dambeeyey ee khariidadda dunida lagaga masaxayay qolyahan isku magacaawday dowladda islaamka waxaana loo sheegay boqolaal qoys oo ah is waa dhammaadkii maleeshiyadaas laakiin waa xasuusin in carruur badani ay dagaalkan sidoo kale saameeyey maamulkani waxa uu ugu baaqayaa caalamka inay ugu yaraan ka caawiyaan sidii carruurtan ajanabiga ah loo dhaqan celin lahaa si looga saaro fikirkii ay ku dhasheen in uu dib ugu soo mushaaxo mustaqbalka وهجاج لaba bilood kadib markii in ka badan 300 oo ruux ay ku dhinteen biyo xireen fatahay wadanka Brazil waxa shirkadda macdanta Vale ay wajahaysaa caqabado aad u waaweyn iyadoo dhammaan dalka la xiray goobaha macdanta laga qodo sabab la xiriira badqabka dadka awgood Cusmaan Cabdi Xasan ayaa ka waramaya digniin waa degdeg biyo xireenka ayaa furmay ka baxa guryaha 2 toddobaad kadib musiibadii dhimashada lahayd ee halka macdanta laga qodo Brazil digniino ayaa laga maqlayaa Macacos oo ah goob dalxiiska loo tago oo u dhow way beenowday digniinta magaaladana weli sooma kaban Macacos waxa u soo dalxiis taga maalqabeennada raadinaya wax cusub iyo cunno wanaagsan hadda cidnimo doonayso inay halkan timaado saacado gudahood dhammaan waa laga wada noqday dalabkii la sameeyey dadka deegaanka way ka baxeen guryahooda waxayna Macacos noqotay meel aan lagu noolayn tirada yar ee ku hartay waa ganacsato magdhow ka doonaysa Vale oo ah shirkadda macdanta Brazil ee biyo xireenka mas'uulka ka ahayd Grusa Franca waxa ay haysatay oo dhan waxay gelisay dukaankan iyo hanti kale oo ku taal Macacos dukaanka mustaqbalkayga ayuu ahaa maanta waa inaan xiraa mana garanaya waxa ku dhici doona waxaan ka fikirayaa marajadaydii ayaa intaas ku ekaatay waa sida in ruux yimi uu iga qaato waxaygii shirkadaha macdanta sida Vale ayaa iska wareejinaya biyo xireenadoodii hore balse isbeddelkaasi waa mid gaabis ah oo lacag badan ku baxayso tobaneeye ayaa dalka oo dhan ku yaala Itabirto hal sac ayay Macacos u jirtaa magaalooyinkan iyada oo kala ah waxaa xaaqay gabi ahaanba biyo xireenkii u dhowaa ee fatahay xitaa haddii masiibada laga cabsida qaba aysan dhicin magaalada horey ayuu culays u haystay maxaa yeelay waxay ku tiirsanayd macdanta jawaabteenna ugu horraysay murugo ayay ahayd balse hadda quus ayaan joognaa ma jirto hab ay nolosheennu sidii hore ku noqon karto waa inaan dhinnaa qarashka tacliinta caafimaadka nadaafadda waddooyinka dhacdooyinka Boromagino iyo Mariano nolol ayaa lagu waayey dadna way ku barakaceen dhaawac ayayna ku reebtay deegaanka Vale waxay sheegaysaa in ay ka go'an tahay inay isbeddel sameeyaan balse saamaynta musiibada ayaa ka jirta gobolka oo dhan waaga daawadayaal haddii aan macdan qodista Yurub halka uga tago bal iminkana eegno wararka ciyaaraha ee caawa waxaanu ku bilaabeynaa isreebka dalalka Yurub Spain waxa ay 2-0 kaga adkaatay kooxda yar ee Malta dalkaasi Malta oo ku yaala badda Mediterranean-ka Norway 3 gool oo ay mar dambe keentay ayay barbardhac ugu keentay dalka Sweden oo ay halkaasi bareejo ku galeen laakiin soo rogaal colintii ugu weyneyd waxa ay dhacday ciyaartii dhexmartay Denmark iyo Switzerland oo iyaga oo 3 gool lagu leeyahay Denmark ka daba keeneen 3 gool oo kale halkaas oo ay ciyaartaasina ku dhamaatay barbaro Chelsea waxa ay sheegtay in wiilka yar ee uga ciyaara garabka Callum Hudson-Odoi in maskaxiyan la caawi doono kadib markii midabta koor uu la kulmay 2 jeer toddobaadkii hore wiilkan oo 18 jir ah waxa la abaaray markii ay kooxdiisu la ciyaaraysay Dynamo Kiev 14kii bishan March iyo mar labaad markii ay England la ciyaaraysay Montenegro toddobaadkan koobka isreebka qaramada Yurub Nigeria waxa ay kaga adkaatay xalay kooxda Masar 1-0 goolka oo la dhaliyay 10kii ilbiriqsi ee ugu horeeyay
Paul Anochu waxa uu darafka ka dhaliyay gool lagu tilmaamay kii ugu dhaqsaha badnaa kubadda cagta heerka caalamiga ah. Waryahan Anochu oo u ciyaara koox ka dhisan Denmark ayaa markii ugu horeysay ka ciyaaray garoonka Saba. Gool ayay kaga badiyeen kooxda martida loo noqon doono koobka qaramada Afrika xagaagan. sheekada Frankenstein waxa ay ka mid tahay sheekooyin soo jiray in ka badan 200 oo sano oo dad badani ay daawan jireen. Aflaan ayaa laga sameeyay, dhalinyaro ayaa iminka qaab cajaa'ib ah uga sameysay riwaayado, filimo iyo music. Iminkana iskuul wax lagu jilo oo ku yaala magaalada London ayaa hab ka duwan sidii hore wax uga sameeyay music ay codkooda isticmaalayaan, qaab music ay afka uga dhawaajinayaan. Bella Maxamed Xasan ayaa ka waramaysa. tani waxay u ekaan kartaa music uu ku dhan yahay laxankii iyo durbaankii. farqiga keliga ee u dhexeeya qalabka ay jilyaashu isticmaalayaan oo ah afkooda. magacaygu waa Connor, waxaan ahay agaasimaha akaademiyadda Beatbox. waxaanan ardayda baray wax kastoo aan aqaanay. Conrad wuxuu wax baray Amnite iyo APH Beatbox tan iyo markii ay 12 jirka ahaayeen, iyaga oo ka mid ah dhalinyarada akaademiyadda ee lagu qabtay xarunta farshaxanka Battersea ee London. marka aan jilayo waxaan dareemaa in aan ahay qof aan la taaban karin, mana dareemo adduunka baxsan masraxa oo ah halka aan xilliga joogo. hadda iyaga iyo 4 jilyaal oo kale waxay ku dadaalayaan inay riwaayadan Mary Charles Frankenstein ay casriyeeyaan. We use devices as shields as we wield them over others' lives, validated by shares and likes. sababta aan u dooranay in riwaayadan Frankenstein ay u noqoto dulucda bandhigan kooxdayadu waa dad asalkoodu kala duwan yahay. waxaananu dareennay in sheekadan aan u isticmaali karno in aanu ku soo bandhigno sheekooyin badan oo isku dhafa. dhagaysiga cajaladaha musiga ayaa saameyn weyn ku yeeshay APH. waxay beddeshay noloshaydii oo dhan. waxaan islahaa jaamacadda gal oo baro maareynta ganacsiga, waxaan noqon lahaa maareeye. dhanka kale laga eegana waxaa laga yaabaa inaan dukaan galo oo aan heeso, qofka gadayana uu isiiyo buskut hadiyad. mararka qaar si aadan filaynin ayaad wax uga heshaa. ugu dambeyntiina goobaha lagu ciyaaro golfka waa kuwa qurux badan oo nasasho loo tago. maalin dhaweydse mid ku taala Georgia malaha orod iyo kala carar baa ka dhacay kadib markii ay xaas weyn oo si xaraga leh ku dhex maray cawska mool u dhow harada Savannah inta aanu biyaha quusin. Advance oo daawanayay sawiradana qaaday ayaa sheegay in uu horay halkan yaxaas ugu arkay, laakiin kani uu ahaa mid aad u weyn. ilaa 250,000 oo yaxaas ayaa ku nool Georgia. marab waxaad nagala socon kartaan BBC Somali Facebook. fadlan raadi BBC News Somali halkaas oo aad ka heli doonto muuqaallo, falanqeyn dheeraad ah iyo wararka ugu waaweyn. si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamkana nagala soco BBC Somali Twitter iyo Instagram. intaas ayaan kusoo afmeeraya barnaamijka caawiya caalamka. waad ku mahadsantihiin daawashadeena. intaan mar kale kulmi doonana anigii asxaabta London waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.